kulanti waxaan daawadayaal halkan waa gacal show anigu waa Maryam Muxadiin gacal waxa marti inoo ah Foos Maxamed Axmed oo kamid ah gabdhaha dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho Foos waxa ay leedahay cod lagu turjumi karo aflaanta noocyadiisa kala duwan sida Hindiga iyo musalsalaadka Carabiga ah Foos marka hore waxaan kugu soo dhaweynaynaa channel-keena gacal show soo dhawow waan dhawahay runtii abaaya qaaliya wanad ku mahadsan tahay maadaama aad meeshaan maanta aan martiin kooga ahay waan dhawahay Foosay gacal show marti kuma tiid qaybaad ka tahay laakiin waraysigeenan marti aad ku tahay soo maahan waxaan rabnaa aniga iyo daawadayaashaba inaad la wadaagto xilliga aad isku aragtay codkan aad ku turjumi karto filmaadda anagoo u soo laaban doono inaan codka aan la wadaagno daawadayaasheena bal xilligaad isku aragtay iyo waxa kugu dhaliyo runtii mar musalsal u jiray wiil baan jeclaay wiilkii waan waayay in badan isku dayay wiilkii si dhaba u waayay asigoo dhan waan ka sabray markaas waxa socday musalsalaad baraajiin musalsal la dhahaayo baraajiin musalsal wuxuu ahaa asiga dhan kala dhudhumay lees weynaayo ilaa qof aan waayay markaas aniga koobiyay filimka maslaxadaada ka dhaxaragtay maadaama aad qof dhaawacan aad inaan bogsi karaan buu arkabo waad isku madadaalin jirtay ugu dambeyn warka wuxuu ku dhaxalsiiyay sida aad musalsalka u daawanaysay in aad keento codka lagu turjumayo filimkaas asigii haddana isoo wacay markuu ila hadlo islaamay iga way adiga aad ayaad u qaldan tahay Foos iga la dhahaade sidaasan ugu jawaabay markaasaan talantaga helay waa tahay Foos hadda waxaan rabnaa inaad ku hadasho codka hadda aad nagula hadlaysay oo aad ninka marka ku soo wacay ex jaceelkaagii hore aad kula hadlaysay marka waxaad noo matashaa qof u calaacalay jaceelkeeda haddaba ka soo qaad fadhigan aan fadhino in jaceelkaagii uu ka hor taagan yahay ama adigoo calaacalaya ama adigoo ceerinaya ama adigoo ku faraxsan adoo iska dhigayna xiriirkiina ku faraxsantihiin waxun noo matal waxaan ku jeclahay aniga laantaada ma noolaa karo runtii haddii aan ku waayo waan isdilayaa aniga waan ku baryaa garab ise waayo jaceylkayga dartiis waa inaad garab isaysaa aniga fadhigan aan fadhiyo Foosay waxaan moodaba inaan TV-gii aan hor fadhiyo oo aan musalsal mid ka mid ah musalsalada aan jeclahay inaan daawanayo kale cajiib Foos maadaama aad ex saaxiibkaagii aad kula hadashay codkaas muxuu dareemay marka wallaahi wuxuu dareemay inuu isoo raadiyo isku dayay aniga inaan sii fogeeyaan isku dayay oo ku nacay aniga iga fogow qalbigayga ayaad dhaawacday adiga daawana kuma arka aniga waa inaad iga fogaataa saasaan isku weynaanay isiga Foos inagoo ka xun inaan xasuus hore aan ku gelino haddana xasuusta waxa ay ku lamaan tahay qisadaada ah ee halka aad ka keentay codkan talantigan aad ku turjumi karto filmaadda wali isku dayday in aad la xiriirto kooxaha filmaadda turjuma si aad filmaadda aad uga qayb qaadato turjunkooda wali ma raadin wali hadda codkii waad leedahay oo anaaba hadda aaminsanba inaad ku fiican tahay xilligan aad aaminsanaaba inaad filim daawanayo mustaqbalkaaga ama higsigaaga muxuu yahay marka mustaqbalkayga aniga inaan shaqaysto oo macni heer aan gaaro taasaan rabaa aniga shaqo noocee ah marka codkan ma jeceshahay inaad ku sii shaqayso waan jeclaa codkan inaan ku shaqaysto waayo codaan heesta soo maaha waa haybad Ilaahay siiyay waa tahay Foos marka laga soo tago codkaad iminkana maqashiisay ma jira codad kale oo aad isku tuumaysid oo aad leedahay oo talanti ah inaad filmaadda turjumi karto cod kale ku qarsoon ma jira hawle laakiin dib u dhiganayna waa tahay barnaamijyo fara badan oo gacal show iyo Foos ay mataana ku yihiin ayaa daawadayaal idin soo socda idinkoo codad u qarsoon Foosna aan idin la wadaagi doono Foos isla codkaana ku heesanaa waxaad noo matalaysaa adigoo sodohda la hadlayo kaba soo qaad sodohda inay qof kulul ay tahay ama ay ka xun tahay wada noolaanshaha adiga iyo ninkaaga noo matal adigoo sodohdii u calaacalayo oo aad leedahay aniga iyo wiilkaaga hana kala geenin inoo matal qaybtaas hooyo aniga mar walba maxaad ii dhibaataysaa aniga wiilkaaga waa jeclahay hooyo dhibaatadaad ii hortaagan tahay caqabada maxay tahay hooyo waa inaan labadayna dhexdayna isaga baxdaa haddii aad ka bixi weyso adiga ayaa dabkan ku gubanayo waa jeclahay aniga wiilkaaga hooyo adigana sidoo kale cajiib
foos waa kugu hambalyeynayna talantigaaga iyo inaad geesinimo aad muujisay oo aad asxaabta ama dadka aad la wadaagto foos sida aan daawadayaasha u sheegnay MGACL show bah wadaagaad la tahay ما شاء الله anagoo ku faraxsan inaad wax badan nagu soo kordhin doontid oo barnaamijyo kala duwan aad halkan ka qaban doontid codka aad sida gaarka u leedahay codkaaga rasmiga ah ee imiga aad nagula hadlayso iyo codkan talantiga ee filmaanta turjumaadka labaduba in halkan daawadayaasha aad kula wadaagi doontid maxaad is leedahay waad soo kordhin doontaa oo aad u sii ballan qaadaysaa daawadayaasha runaantii waxaan u sii ballan qaadayaa waxyaalo badan oo cajiiba sheekooyin wax badan oo soo wadnaa foos waxaad noo matashay adigoo sodohda u calaancalaayo sodoh oo yara kulul oo diidan inaad wada noolaataan adiga iyo wiilkeeda adigoo calaancalaayo waa noo matashay adigoo saaxiibka leh iga fogowna waad noo matashay waxaad noo matalaysaa adiga oo jacaylkaaga ku hortaagaya iskuna faraxsan tihiin labada marba waxay ahayd moogtaa sheeko xoogaa khilaaf ah ama xanuun ah adoo faraxsan jacaylkaaga ku hortaagan yahay oo mustaqbalkiina iyo aayihiina ka hadlaya noo matal runaantii aniga aad ayaan kooga xiisay waqti walbana waan ku walwalaa moogtaa runaantii aniga la'aantaada ma noolaan karo daqiiqad walba waxaan rabaa agteeda inaad taagnaato ogahay aniga la'aanteeda inaadan noolaan karin laakiin dhabti aad ayaan kooga xiisay aniga waa tahay foosay aad baan uga helay aniga shakhsiyan Maryan ahaan qaabka aad wax u matalaysid markan waxaan rabaa adoo kaliga isla hadlaayo oo ama faraxsan ama careysan doorashada aad ku deynayna qof kaligiis isla hadlaayo maxaasaas leeyahay maxaasaas ku mutaystay ma waxaan wacaasina noo matashaarna ogahay aniga maxay tahay sidaan aniga jacaylkayga miyaa nusqaan ahay mar walba aniga waxaan isku dayayaa inaan soo jiito laakiin asigana waa iga sii fogaanaya aniga waa inaan ogaada dhibaatadan meesha ay ka socoto ma jacaylkayga ayaa wax ka dhigay mase aniga ayaaba cajab gelin ba asiga aniga hadda ayaan bacesubaha hadda ayaa la iga fogaanaya foosay gabagabadii aan isla soo gaarnay waan jeclaynay in waraysiga uu sii dheeraado hase ahaatee wax badan daawadayaasheena dib aan u dhiganaynaa maadaama foos ay MGACL show qayb ka tahay foos waxaan rabaa inaad turjunto hindida inaad carabta musalsalaadkooda aad turjunto keebaad jeceshahay oo adiga aad ugu qanacsan hindiga jeclaa inaan fasir mustaqbalka hindiga jeclaa ma jirtaa atariisho oo aad jeceshahay inaad si gaar ah filmaadeeda aad u turjunto haddii aad nasiib u yeelato kale sida hindiga mase filin musalsalka maadaama tiri hindidan jeclahay musalsalaadka ama filmaada hindiga ma jirtaa atariisho oo aad jeceshahay alla ilaahay atariishadaas mar uun haddii aad turjumi lahayd way ficnaan lahayd atariishaha ku taamto ma jirtaa oo aad taageerto arohiya jeceshahay ina aad u turjunto waa naag kartile waa naag dadka iska celin karta naagtaas naag iyada dhan la waaye karti foosay maadaama arohi aad dalbatay dadka filmkaas daawada qeyban ka ahay marka laga hadlayo arohi iyo taaraha ahayd naagta filimka qasiisa naagta dadka dilaysay adigana arohi kartiyaad ku sheegtay ma islaada sida arohi wax badan waa calaacali doontaa dabcan calaacalku waa wax lagu dhisayaa Soomaaliya lagu wada joogo qofan calaacali ma joogo dunida Soomaaliya foos waraysigeeda halkaan aan kusoo gabagabeynayna MGACL show kala socda muuqaalo fara badan oo ay foos ayada horjooga ka tahay ama ay daadihin doonto waxyaabo badan oo foos ilaahay hibo u siiyay ayaan soo bandhigi doonaa foosaan idinkaga tagayaa foos maxaad leedahay daawadayaasha waxaan leeyahay aniga ayaa hadda imaaday kala kicis horle ayaa imaanayo waa inaad subscribe saartiin kambalaalkana waa inaad taabatiin wax badan oo badanna waa idiin haynaa halkaas ayaan uga baxayaa aniga